ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo ka qayb galay kulanka ururada siyaasadda dalka Itoobiya ku kala saxiixdeen axad qarameed 20 qodob ka kooban oo gundhig u noqon doona xiriirka ururada siyaasadda dalka Itoobiya ayaa baaq iyo digniin u diray xisbiga uu hogaamiyo ee EPRDF oo ah mid ay ku bahoobeen afarta urur ee kala ah ADB, OBD, SEBDM iyo TPLF. kulankan oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 107 urur siyaasadeed ayaa waxa si wada jir ah u soo diyaariyay ururada siyaasadda iyo komishinka doorashooyinka dalka Itoobiya oo dhawaan dib loo habeeyay. waxaana lagu wadaa in axad qoraaleedkani uu wax badan ka bedeli doono xiriirka ka dhaxeeya ururada siyaasadda dalka Itoobiya. ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa kulankan ka sheegay in EPRDF ay ka go'an tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah, isla markaasna ay aaminsan yihiin in Itoobiya u baahan tahay dimuqraadiyad rasmi ah oo tusaale u noqon karta wadamada kale ee Afrika, waa sidoo hadalka u dhigay. dhanka kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa baaq u diray xubnaha xisbiga EPRDF oo isagu matalayay iyo heerarka kala duwan ee dawladda dalka Itoobiya isagoo ku booriyay inayna wax carqalad u geysanin dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee ururada mucaaradka, isla markaasna ay taageeraan haddii ay ururadu u baahdaan goobo ay ku shiraan ama ay ku kulmaan iyo wax la mid ah, ama ugu yaraan ayuu yidhi ay ammaan siiyaan oo ayna carqaladayn. waxa uu intaasi raaciyay in maamulada degmooyinka, gobolada iyo dawlad deegaanadu ayna ku fakareen in kaligood ay yihiin kuwa matali kara dadka ay xukumaan. waxauna hoosta ka xariiqay in ururka EPRDF diyaar u yahay inay la shaqeyso ciddii talada dalka Itoobiya ku guuleysata doorashada soo socota, taasi oo sheegay haddii ay ka shaqeynayso midnimada iyo wadajirka. Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa sidoo kale fariin u diray hay'adaha ammaanka iyo ciidamada kala duwan, waxa uuna ku booriyay inay si siman oo cadaalad ah ula shaqeeyaan dhammaan ururada siyaasadeed ee sida sharciga ah dalka Itoobiya uga diiwaan gashan. hadalka ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa imaanaya xilli aad u liito xiriirka hogaamineed ee ka dhaxeeya ururada ku bahoobay EPRDF iyo saameynta hogaamineed ee Abiy Ahmed. lama oga waxay ka bedeli doonto hadalkiisu habdhaqanka ururka EPRDF.